kaftan iyo ciyaar ah inaad ogaato arrinka afar iyo tobnaad waxa weeye qabrigu inuu yahay أول منازل الآخرة واحد كلا كلانتو أي آخرة أنت ضمنا نقنيسا ساس درتت أي واحد لبها هي إن تكون داشو القبر أول منازل الآخرة آخرة منازل أوه الرئيس قفك وتجيوه وحيات كلا كلانتو ولذلك هي الجوري عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه marka uu qabriga yimaado ayuu aad u injiray buu yiri nin mawlihiisa ee ka wariyay markaasaan waxaan ku iri buu yiri markaad qabriga timaado ayaad aad u oysaa maxay tahay sababtu wuxuu yiri waxaan maqlay nabiga kaleey salaatu wasalaam oo oranaya alqabru awwal manazil alaakhirah qabrigu waa guriyihii aakhirada meeshii ugu soo horeysay weeye waxaad kala kulanto haddaad wanaag kala kulanto waxa ka dambeeyana wanaag bay noqonayaan haddaad xumaan kala kulanto iyo dhibna waxa ka dambeeya waa ka sii dhib yihiin saas darteed ayaa loo baahan yahay waana sheegi doonaa cadaabul qabriga iyo manzilka ugu horeeya waxyaalaha lagaga badbaadi karo iyo waxyaalaha uu ku noqon karo meel wanaagsan waxaan hadda sheegaynaa qofku meesha lagu duugayo inay ilaahay caza wajalla agtiisa ka qoran tahay nabigu calayhi salaatu wasalaam uu noogu sheegay xadiis qofka haddii meel naftiisa la rabo in lagu qabto ilaahay caza wajalla wuxuu u geliyaa dan buu meesha u geliyaa haddii la rabo maanta inuu ku dhinto maka inuu ku dhinto dan baa loo gelinayaa maka ama xaj ha noqoto ama tijaaro ha noqoto ama wax kale ha noqoto isagoo tijaaro isaga socda ama xaj isaga socda oo isla soo noqo meeshaasaa naftiisa lagu qabanaya waa meeshii la qoray saas darteed nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu aad iyo aad ugu booriyey ummadiisa qofkii awoodi kara inuu ku dhinto madiina inuu ku dhinto wuxuu yidhi man istataaca an yamuuta fi lmadiina falyamut fainii shahiidun liman maata biha waxaan anigu u ahay marag baan u ahay oo shafaac baan u ahay oo waan u soo istaagaa maalinta qiyaamo qofkii madiina ku dhinta marka qofkii awoodi kara inuu madiina ku dhinto madiinaha ku dhinto waxa weeye qofku isagu ma hayo sababteeda laakiin ha isku dayo weeye ama ku noolaanshaheeda ama ziyaaradeeda badan ama jeclaanteeda ha isku dayo inuu lahaado arrinka waa masjidkii nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo mahjarkiisii iyo meeshuu adduunka ugu jeclaa waxa weeye meeshaas weeye waxaan ka ahayn maka arrinka 19 waxa weeye cadaabul qabriga sababta uu leeyahay asbaabaha keena laba sababood ayaa ugu weyn laba sababood oo xadiiska saxiixa ku sugnaaday ee Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu oo nabiga kaleey salaatu wasalaam uu ka wariyay ee muttafaq calayhi Bukhari iyo Muslim ba ay wariyeen wuxuu leeyahay Abdullah ibn Abbas رضي الله تعالى عنه مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين لبا قبري أي مال مالمها كملا سو أقمري نبي عليه الصلاة والسلام مركاسو انت استاجي وأصحابتي سلسعتي استاجي أي وحيري أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير لبضا قبري نمنك كجرة وددك كجرة والعذابية وعذابيهن عذابي هد كجران وحوين لكم عذابي متكود أما أحدهما فكان لا يستتر من البول متكود كاديدا اسكما إلى لنجرين اسكما دوري جرين إن كفن فنينتو إن دركيس كود عضو إن بدن كيس قارتو اسكما إلى لنجرين وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة هذا الك أيودتك أكلا قادي جري هذا الك قفكم كسو قاضا هبل ساسو كيري كانوا كسو قاضا هبل ساسو كيري hadduu rag iyo dumar ba yahay waxa weeye labadooda inay arrinkaas ay ka digtoonaadaan labada arrimood kaadida iyo namiimada hadalka dadka loo kala qaado waa labada asbaabood ee xadiiska saxiixa ku yimi ee nabigu calayhi salaam uu sheegay waxyaalaha ugu badan cadaabul qabriga ay ka yimaado nabigu calayhi salaam wuxuu sheegay cadaabul qabriga caamatuhu siduu u badan yahay wuxuu ka yimaadaa min albowl kaadidu ka yimaadaa saas darteed waxaa loo baahan yahay qofka doonaya cadaabul qabri inuu ka badbaado waxaa loo baahan yahay inuu kaadida iska ilaaliyo kaadida inuu aad uga digtoonaado inuu ku soo fanfaniinin ee meel fanfaniin ku keenaysa aanu ku kaajin khaasatan dhalinyarada iskoolada iyo jaamacadaha iyo meelaha shaqooyinka iyo waxyaalahaas ka shaqeeya ee meelaha gaaladu ay maaragtay ku xaajo gudato meelahaas oo aan waxyaalo lagu istijoodo iyo waxyaalo maaragtay qofku isku dahirin karo ee aanay ahayn dad dahaaro ka fikira arrimahaas waxaa loo baahan yahay dadku aad uga digtoonaadaan
arrinka labaadna waa namiimada iyo dadka hadal loo qaado weligaa qof hadal ha u qaadin nin ayaa wuxuu u yimi nin saalixiintii ka mida salafkii ka mida ayaa nin u yimi markaasuu wuxuu yidhi hadal qof kale u sheegay ayuu u keenay markaasuu wuxuu ku yidhi warheedhe shaydaanku ma waaye boosto kale oo wax u soo dhiibto aan adiga ahayn miyuu waayey yacni waxaa tahay messengerkii miyaa tahay shaydaanka miyaa u tahay hadal intaa usoo qaado marka qofka namaamka ah hadal inaad ka dhegaysato maaha hadduu ku yidhaha heblaaya saasay ku tiri hebel saasuu ku yidhi waa inaad tidhahda shaydaan baad mase shaydaanka baa ku soo dirsaday adiga or iska tag arrinka labaatanaad waxaa weeye alisticaadatu min cadaabi alqabri nebigu alay slam wuxuuna baray cadaabuulqabriga inaan ilaahay caza wajalla aan ka magan galno oo ilaahay aan weydiisanno inuu naga badbaadiyo allahuma ini acuudu bika min cadaabi alqabri waacuudu bika min cadaabi annaar waacuudu bika min fitnati almaxya walmamaat waacuudu bika min fitnati almasiixi addajaal sidaas buuna baray nebigu calayh salatu wasalaam salaad walbo aan tukanno inaanu sidaas ku ducaysanno qabla altasliim intaynaan salaadda ka salaamaysan afartaa arrimood inaynu ilaahay ka magan galno sababtuna waxay ahayd nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaa guriga caaisho timi radia allahu tacala canha haweenay yahuudiyada markaasay waxay ku tiri markay wax siisay ilaahay cadaab naarka ha kaa badbaadiyo cadaabulqabriga ha kaa badbaadiyo markii nebigu alay slam u yimi ayaa waxay tihi caaisha yaa rasuula allahi cadaabulqabri bay haweenta yahuudiyadda ii sheegtay ilaan kutubtii horey haystaane miyaa cadaabulqabri miyaa jira dadka cadaabta lagu cadaabaa markaasuu nebigu alay sl slam wuxuu yidhi waa la ii waxyooday waxyi baa igu soo degay waxaa la ii sheegay inaad qubuurtiinna aad ku cadaaban tihiin oo laydinku cadaabayo qofkii mutaysta weeye sidaas darteed intaa kadib waxay tihi caaisha waxaan ka maqli jiray nebiga alay slat slaam inuu aad u badin jiray inuu cadaabalqabriga uu ilaahay caza wajalla uu ka magan galo waxaan hadda isweydiinaynaa maxaa lagaga badbaadaa cadaabulqabriga maxaa lagaga badbaadaa waxyaalaha lagaga badbaado cadaabalqabriga 5 arrimood ayaa ugu weyn 5 arrimood haddeerba meel ku xusuuso qofka koowaad waxa weeye sababta koowaad ee cadaabulqabriga lagaga badbaado almuraabata waxaa la yidhaahdaa qofku inuu cadowga hor taagan yahay jihaadka marka lagu jiro meelaha xuduudaha meelaha cadowga ay dadka muslimiinta ka soo geli karaan inuu muraabit ku yahay halkaa naftiisa ku xabisay halkaa uu joogo oo uu cadowga hor taagan yahay qofku hadduu sidaa ku dhinto muraabidka cadaabulqabri ma arko waa laga badbaadiyaa qofka labaad waa shahiidka ilaahay dartiis u dhinta sabab ilaahay u dhinta isagana waa laga badbaadiyaa qofka saddexaad waxa weeye xadiisku uu sheegay suuratu tabaaraka aladii biyadihi lmulku suuratu lmulku qofka akhriya habeen kasta cadaabulqabri way ka badbaadisaa qofka afraad waxa weeye inuu ku dhinto caloosha mowtu marad albadn isagana wuxuu sheegay nebigu calayh salatu wasalaam cadaabulqabriga in laga badbaadiyo qofka shanaad waxa weeye qofka dhinta habeenka ama maalinta jimcada ah oo qof saalixa ee mu'mina ee dhinta habeen ama jimco ama maalinteeda isagana waa laga badbaadiyaa ma aha qof kasta hadduu mudayic ahaa waxa weeye kuma jiro laakiin qof saalixa oo mu'mina oo wakhtigaa dhinta amaa shuhaadada la sheegayo shuhaadadu way badan yihiin way fara badan yihiin ilaa 12 ayaa xadiista ku soo arkay midka koowaad waa mabtuunka midka ku dhinta yacni caloosha u dhinta ama ha ahaato caloosha furantay ama ha ahaato jirro caloosha kaga dhacday midka matcuunka ah ee taacuunka ku dhinta midka qariiqa ah ee badda ku hafta midka saaxibulhadmiga ah ee meel ku dunto midka xariiqa yacni gubashada ku dhinta midka saaxibu daatiljanbiga ah ee cudur jambiga gala ama dhinaca gala uu isagana uu dilo almar'atu tamuutu bijumcin haweenayda isku dhimata ama waxa weeye iyada oo wilaadadii xaalatulwilaada ku dhimata waa lagu fasiray xaalatulwilaada markay dhalaysay isku dhimatay iyada iyo ilmaheedii uu urka ku jiro amase haweenay bikraah oo aan la taaban oo sidaa ku dhimatay iyadana culimo qaar ayaa ku fasiray sidaas waxaa qaarkood ku fasireen intaanay gabadhu dhiiggaba gaarin ayaa qaarkoodna lagu fasiray waxaa kaleeto ka mid a qofkii oo isagana shahiid la yidhaahdaa xoolihiisa isagoo difaacanaya oo ku dhinta ama qofkii dhiiggiisa difaacayo ku dhinta ama qofkii sharaftiisa iyo ahalkiisa difaacayo ku dhinta yacni xaaskiisa oo qof doonayo inuu ku ictidoodo ku dhinta ama qofkii diintiisa u dhinta intuba shuhada waa la yidhaahdaa oo waxay ka mid yihiin dadka shuhadada ayay ka mid yihiin waxaa kaleetoo nebigu calayh salatu wasalaam xadiis xasana oo abu hurayra radia allahu tacaala canhu uu sheegayo oo uu nooga soo wariyey nebiga calayh salatu wasalaam uu noo sheegay qofka qabrigiisa haddii la dhigo in ay acmaashiisii saalixa ahayd cadaabalqabriga wax badan ay ka badbaadiso wuxuu leeyahay abu hurayra radia allahu tacaala canhu
إن الميت نبي عليه الصلاة والسلام وحيري إن الميت قفك دنتي إذا وضع في قبره سهدي الله دقو إنه يسمع خفق نعالهم dadku markay ka tagaan wuxuu maqlayaa kabahoodii sanqadhoodii uu maqlayaa حين يولوا مدبرين markay ka tagaan markiiba nafta lagu soo celinaya fa in kana mu'minan haduu qof mu'mina aha كانت الصلاة صلاة waxay ahaanaysaa عند رأسه madaxiisay taagantahay salaadii baa ilaalinaysa salaadiisi maqbuulkaay madaxiisay taagantahay وكان الصيام صومكina wuxuu ahaanaya عن يمينه midigtiisa وكانت الزكاة zakadina waxay ahaanaysaa عن شماله